xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson oo ku sii guda jira booqashadiisa uu ku marayo qaar ka mid ah dalalka qaaradda Afrika gaar ahaan shanta dal iyo kadib markii uu soo maray dalka Ethiopia ayaa waxa uu maanta xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson uu soo gaaray Jamhuuriyadda Djibouti kolkii uu ka soo degay garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee Jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa halkaasi ugu horeyntiiba si diiran oo heer sare ah ugu soo dhaweeyay waa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afayeenka xukuumadda mudane Maxamuud Cali Yuusuf iyo xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo waliba danjiraha dalka Mareykanka u fadhiya Jamhuuriyadda Djibouti oo intuba ku hoosugay diyaaradaasi ula socday xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka oo isagu booqashadiisa ka soo bilaabay Ethiopia kuna xigsiiyay Jamhuuriyadda Djibouti booqashadani ayaa waxay tahay mid ka turjumaysa xiriirka iyo iskaashiga aad ka wanaagsan ee ka dhaxeeya Jamhuuriyadda Djibouti iyo dalka Mareykanka kadib soo dhaweyntaasi garoonka diyaaradaha caalamiga ee Jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ku soo kicitimay qasriga madaxtooyada waxaana halkaasi si heer sare ugu soo dhaweeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa sida aan soo sheegay qasriga madaxtooyada uu ku qaabilay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson oo booqasho shaqo ku yimid Djibouti waxaana booqashadani ay qayb ka tahay socdaalka uu ku marayo shanta dal ee ku yaala qaaradda Afrika waxaana booqashadani ay si cad uga turjumaysaa ahamiyadda Mareykanku siiyo Jamhuuriyadda Djibouti intii hadaba kulankaasi lagu guda jiray ayaa waxa madaxweynaha Jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ay isla soo qaadeen xiriirka saaxiibtinimo iyo midka iskaashi ee u dhaxeeya labada dal iyo labada ummadood waxa sidoo kale ay isla soo qaadeen wada shaqaynta heerka sare ah ee labada dal ay ku wajahan horumarka dhaqaale waxaana xusid mudan in Jamhuuriyadda Djibouti ee dalka Mareykanku ay iska kaashadaan dhowr waaxyood sida horumarka gaar ahaan waaxda tamarta iyadoo dalkeenu ka mid noqday dalalka ka faa'iideysta barnaamijka Mareykanka ee loogu magac daray Power kaasoo ah mid ku saleysan ka faa'iideysiga iyo maalgelinta tamarta waxaa sidoo kale ay iska kaashadaan waax kale oo iyadu ka mid ah horumarka isla mar ahaantaana istaraatiiji ah taasoo loogu magac daray First Program ama barnaamijka koobaad waana mid ku saabsan kulaynta maaliyadeed iyo waliba gudbinta khibrada ku aadan la dagaalanka camal la'aanta iyo xoojinta aqoonta xirfadeed madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa intaasi kadib ka wada sheekaystay iskaashiga gaarka ah ee u dhaxeeya labada dal ee ku saabsan waaxda military iyo midka amni waxaana jirtay in dalkeenu martigeliyay xeerada military ee kaliya ee Mareykanku ku leeyahay Afrika gees kale iskaashiga Shiinaha iyo su'aasha ku wajahan xaaladda DMP war iyo maamul wanaaga ayaa ah qodobada kale isla soo qaadeen waxaana kulankaasi u joogay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah afayeenka xukuumadda mudane Maxamuud Cali Yuusuf iyo xogayaha guud ee madaxtooyada mudane Maxamed Cabdullaahi Wacaysi waliba danjiraha dalka Mareykanka ku fadhiya Djibouti Larry Andre xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warramay ujeedada booqashadiisa shaqo iyo ujeedooyinka ka dambeeya Ciise Ibraahim ayaa soo turjumay hadaladiisa waxay ismaxdaan marka hore marooyin iyo mudanayaal in halkani ka salaamo oo jimco wanaagsan u rajeeyo dhammaan ummadda reer Djibouti ee ku nool dalka iyo dibaddaba intaasi kadib waxaa mahad u celin madaxweynaha Jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo si heer sare ii soo dhaweeyay isla markii aan soo gaaray Djibouti Mareykanka ayaa ka haysata Jamhuuriyadda Djibouti sawir wanaagsan oo ku saleysan dimuqraasiyad iyo ummad jecel xasiloonida isla markaana ku foojigan ka shaqaynta nabadgelyada gobolkan ee geeska Afrika waxaana aad u soo dhaweyn howlkarnimada ciidanka Djibouti ee ka qaadata howlgallada AMISOM ee Soomaaliya iyo xukuumadda Djibouti ee ku aadan daryeelida qaxootiga intaasi kadib aniga iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo si foolka fool ah u wada hadlay ayaan waxaan ka wada sheekaysanay istaraatiijiyadda cusub ee ku sii xoojinayno cilaaqaadka labageysoodka ah ee Djibouti iyo Mareykanka si kastaba ahaatee iskaashi dhinacyo badan taabanaysa ayaa taariikh ahaan wadaagnaa Djibouti haddii ay noqoto ammaanka
dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo qaar kale oo horumarka Djibouti ka shaqeynaysa balse runtii waxa loo baahan yahay in xoog loo sii adkeeyo arrimahaasi oo dhan waana ujeedada ugu weyn ee booqashadan hawleed aan ku soo gaaray Jamhuuriyadda Djibouti waxa ay noqotay dalkii labaad ee ku sii xigsiino socdaalkayga kadib Ethiopia taasna waxay ka marag furaysaa Mareykanka sida uu xushmeeyo dalka Djibouti oo door bidnay in saldhig weyn ka furno Jamhuuriyadda Djibouti si aan ula dagaalamno kooxaha argagixisada goobta awgeed ee ku taalo Djibouti ayaa ah meel u baahan in la ilaaliyo waayo waxa iska gooshaa maraakiibka ugu waaweyn caalamka midda labaadna waa marinka gobolkan iyo Afrika inteeda kale ee gargaar loo sii mariyo wadamada colaadu ay ka aloosan tahay gees kale waxa sidoo kale warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afayeenka xukuumadda mudane Maxamuud Cali Yuusuf waxaana uu sheegay in booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ay tahay mid si cad uga turjumaysa ihtimaamka gaarka ah ee Mareykanka uu siiyo Djibouti Khadir Geedi ayaa noo soo turjumay hadalladii wasiirka arrimaha dibadda Nous sommes fiers aujourd'hui que l'administration américaine ait pu compter Djibouti dans ce périple. imaantika xogeey dawladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha dibadda waxa ay ka marag furay i'tiraafka dawladda Mareykanku ay u qabto dawladda Djibouti sida aad ogsoon tihiin Djibouti waxa ay hoy u tahay saldhigga military ee Camp Lemonnier ciidamadaasi oo joogitaankoodu uu yahay mid ku aadan xoojinta ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada iyo kooxaha xagjirka ah kulan aan la qaadanay xogeey dawladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha dibadda waxaanu kaga wada xaajoonay amuuro badan oo ay qayb ka ahayeen nabadda iyo ammaanka mandiqada iskaashiga aan la leenahay dawladda Shiinaha arrimaha ku aadan DCT iyo DP World maamul wanaaga xoojinta tayada waxqabadka iyo arrimaha ku aadan shaqagelinta dawladda Djibouti iyo dawladda Mareykanku waxay yihiin laba dal oo saaxiib ah oo leh iskaashi ayagoo ka wada shaqeeya xasilloonida iyo nabadda degmada iyo horumarka waara Djibouti waxa ay isbarbar taagtay dawladda Mareykanka hawlgalka ku aadan la dagaalanka argagixisada iyo kooxaha xagjirka ah geeskaleeti waxaanu ka wada shaqeynaynaa arrimaha la xidhiidha qabanqaabada shirka u qabsoomay labada dal ee qabsoomi doona bisha Abriil ee sanadkan aan ku guda jirno warbixinadaasi kadib waxaa intaasi kadib ay qabteen shir ijraa'id haddii noqoto wasiirka arrimaha dibadda iyo weliba xogeeyaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka waxaana shirkaasi ijraa'id lagu weydiiyey dhowr su'aalood oo ay kamid tahay su'aasha iyadu khusaysa doorka istiraatiijiyadeed ee Mareykanka ee ku aadan cilaaqaadka labada dal gaar ahaan ganacsiga iyo maalgashiga waxaa sidoo kale la weydiiyey arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada ugu dambeynna waxaa la weydiiyey xiriirka Djibouti iyo Mareykanka ka dhaxeeya dhammaan su'aalahaasi oo dhan waxaa nagu jawaabi doona wariye Maxamed Cusmaan Bulxan oo noo soo diyaarshay shirkaasi ijraa'id maxamed oo sidaa tagtay madaxda diblomaasiyadda dalalka Mareykanka ee Djibouti ayaa waxa saaka ay warbaahinta kula hadleen howlka madaxtooyada halkaasi oo shir ijraa'id ay si wada jir ugu qabteen labada diblomaasi ee wasiirada arrimaha dibadda xogeey dawladeedka arrimaha dibadda wadanka Mareykanka Rex Tillerson ayaa ugu horeyn waxa la weydiiyey su'aalo ku aadan doorka Djibouti iyo Mareykanka ee labada wadan u dhaxeeya ganacsiga iyo waliba maalgashiga sidoo kale waxa la weydiiyey doorka Djibouti ee ku aadan la dagaalanka argagixisada iyo nabadda gobolka ugu dambeynna waxa uu ka hadlay xiriirka saaxiibtinimo ee u dhaxeeya Jamhuuriyadda Djibouti iyo wadanka Mareykanka waxa ugu horeyn uu soo hadal qaaday xogeey dawladeedka arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka Mrs Tillerson waxa aan si fiican uga wada hadalnay si heer sareyta waliba maalgashiga labada wadan ee Mareykanka iyo Djibouti maalgashiga Mareykanka ayaa waxa uu doonayaa in dhanka Djibouti uu ka helo in loo damaanad qaado ammaan oo ay ku kalsoonaan karaan isla markaasina ammaankaasi iyo kalsoonidaasi oo leh aragti dheer oo ku aadan dhanka Jamhuuriyadda Djibouti waxa run ahaantii ah in la maalgashado Jamhuuriyadda Djibouti waxa aan isku dayi doonaa si aan u wacyigelino shirkadaha iyo dadka Mareykanka gaar ahaan arrimaha Djibouti si ay u gartaan oo ay u fahmaan nidaamka isku soo dhawaashaha si ay uga howlgalaan maalgashadayaasha Mareykanka Jamhuuriyadda Djibouti
Mr. Tillerson ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim ay tahay oo uu ku adkaystay in maalgashiga Djibouti uu yahay mid si harsarita ku socda. Dhanka kale su'aasha labaad ee la weydiiyay waxa ay ahayd bal ka waran doorka Djibouti ee ku aadan la dagaalanka argagixisada iyo nabadda gobolka, waxaana uu sheegay oo uu soo hadal qaaday in dhanka la dagaalanka argagixisada ee Al-Shabaab ee ka howlgasha Soomaaliya waxa uu yahay mid cad dhanka Djibouti oo ay ka ciyaarto door muhiim ah la dagaalanka argagixisada ka howlgasha wadanka Soomaaliya iyo guud ahaan ammaanka gobolka. Sidoo kale waxa ay iska kaashadaan sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday geesta ciidamada Djibouti si ay u xoojiyaan AMISOM iyo howlaha shaqada ee ururka midowga Afrika. waxa uu sidoo kale ka hadlay si ay uga ciyaaraan door muhiim ah doorkooda ku aadan ilaalinta gobolka iyo waliba howlaha ku aadan in la sugo ammaanka gobolka oo laga ciyaaro door muhiim ah. ugu dambeynna waxa uu ka hadlay xiriirka saaxiibtinimo ee soo jireenka ee u dhaxeeya Jamhuuriyadda Djibouti iyo wadanka Mareykanka, waxaana uu sheegay in Mareykanku saldhigga ugu weyn uu ku leeyahay Jamhuuriyadda Djibouti isla markaasina ay iska kaashadaan arrimo badan oo ay ka mid tahay oo ay ka midaysan yihiin Mareykanka iyo Djibouti sidii ay ula dagaalami lahaayeen argagixisada gobolka loona sugi lahaa ammaanka. waxa aan ka warqabnaa Maxamedow in Djibouti ay ku hareersan yihiin dalal gobolka ku yaala oo dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan sida Soomaaliya iyo Yaban, waxaana uu sheegay in Djibouti ay ku taalo goob istiraatiiji ah loona baahan yahay in guud ahaan laga shaqeeyo sidii ammaanka Djibouti iyo xasiloonida loo sii xoojin lahaa door muhiim ah ay uga ciyaari lahayd la dagaalanka argagixisada iyo ammaanka gobolka.